بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بإذنه تعالى دمان خيارتا هل كان نقد دعوانا إيسا وإذن سلامنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كبعدي بإذنه تعالى وحان رجينا إن موضوعا ما أنت عن سوق بنا إنه النقضاء موضوع حلقة أم سلسلة إن شاء الله تعالى الموضوع عن السجاة أو أخلاق الإسلام أم القيم الإسلامية عن كجاه الله إنه مركز حلقوين أنو سوق بنا مركز ما أنت هدي له وحن سوق بنا إن مركز حلقة دي كوباد أم بقيبت كوباد إن عن كجاه هذا النا يعني رجينا يا هدي له هذا ساد أكتهين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحو كجري أسوى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم النبي وحد كسو انتهى لأخلاق وين أخلاق دي سمرك سيدة عائشة اللي ويدين وحي تري كان خلقها القرآن أخلاق دي سوحي أهيد القرآن القرآن كنا وحد أكتهين وأوامر إيا نواهي ووحيابنا وينفريا وحيابنا وينقرهبيا مركز سيدة درتاد وحابديه كرتابا الأخلاق الإسلام هو الأخلاق دينta islaamku waa akhlaaq gebigeedu marka sida darteed marka dhinaca ka fiirino diintu waa wada akhlaaq marka xigta waxaan dhihi karaa hadaan si tafsiilino oo wax yar aan si kala qaadno diinteena islaamku waxaan u qaybin karaa saddex qaybood ayaan u qaybin karaa amba guud ahaanba dhaqanka islaamka oo dhan waxaan u qaybin karaa saddex qaybood saddexda qaybood oo kala ah iimaan wax la yiraahdo iyo waxa la yiraahdo muxuu ahaaye amal iyo akhlaaq waan u qaybin karaa saddexa waan ka dhigi karaa ama waxaan dhigi karaa basekeeda anagoo ka hadlayna waxaan dhigi karaa arkaanul iimaanka ayaa diinta islaamka base u ah waxa oo jiridii ah waxa ku xiga qaybta ku xigto oo ah arkaanul iimaanka lambar 1 ah arkaanul islaamkuna waa lambar 2 midka saddexaadna waa akhlaaqda ayaan dhigi karaa sidaa darteed baa quraanka kariimka hadaad u fiirsato aayadan bal ila dhageysta ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة إلهي مر ومثالنا هي دينة الإسلام كأن بسيطه إنه وصل بندقة وحويه وحيل معناتها هي جد وناكسن كشجرة طيبة أصلها ثابت أصل كذا مركز جد كإسقاء وحويه وثابت أو جردي أو قد أكتين وجد كهدي معرة اللبيرة وحكوت تاجين هاي حدده يجرد بكتاعين ياهي وفرعها لامهيسو لامو يالنا يا وفرعها في السماء فرع أيضا ومارت حق السماء مارت أجرو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها مركب فيري كبعدنا وحي بحنيسا مري بحنيسا إلهي إذن كيسا يكون بحنيسا يكون مرينيسا مركب حالقوم مثالية دينة الإسلام كحالقوم مثالية إن حددو يجرد دولك كتاعين محوها لامو كرب حي وهدنا مرد علي marka jirida yaani marka dhulka ku taagan waa iimaanki muxuu ahaay laamuhuna waa farci waa wixii iimaankii uu ku taagnaa oo muxuu ahaay laamahi way oo waa islaamnimadii way muxuu ahaa thimaarta iyo mirahana waxa way waa akhlaaqdi sidaa darteed ba marka waxaad ka garanaysaa geedku haduu geed weyn yahay geed miroodna uu yahay ujeedooyinka ugu waaweyn ee geedaha manfaacada loo haysto waxa kamid ah miraha kamid ah marka miruhu waa waxyaabaha ugu muhiimsan laakiin miruhu iskama baxayaan waa inay ku taagan yihiin laan iyo xidid waa inay ku sii taagan yihiin sidaa darteed waxaad ogtihiin nabigeena kaleey salaatu wasalaam maalmaha kamid xadiidkii macruufka ah jibriil dheeraa u yimid nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu wax ka weydiiyay islaamnimada iga sheeg buu yiri markaas iimaanka waxa iga sheeg buu yiri markaas wuxuu u tiriyay arkaanul iimaanka an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر من الله تعالى صدقت رمبات شيكتي فعجبنا له يسأله ويصدق وكلاه يعني نبي ما عرفت إنه أتري أركان الإيمان كأيه هذا جبريل وحكير وارنتا هذا إسلام ماذا وحيجا شيك بيري إسلام ماذا بيوجا شيك أركان الإسلام كيف أتري وذكتهين وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني قيب تاسوا كي أتري مركي كحت قال أخبرني عن الإحسان بير مركي بل إحسان كان يجورن إحسانكم مركب حاول يقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني وحاول إحسانكم يعني يسوع إن إلهي عابده سيد أدو أجده وكله فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا أدو أركين
asaga ayaa ku arkaya marka fiiri waa nuxurki cibaad ilaahay inaad sidoo tahay u caabudo micnaheedu waa maxay waa inaad iimaankii iyo islaamnimadii inaad maartay aad si wanaagsan aad u qabato way inna allaha yuhibbu almuhsinin fiiri ihsaanka ayuu ilaahay jecel yahay marka ihsaankaasi waa maxay ihsaankaas oo maartay oo an ta'bud allah culimadan waxay ku fasiraan alqiyam wal akhlaaq marka waxaan dhigi karaa marka alqiyamku wal akhlaaqu wuxuu ka dhashay waa mirihi ka dhashay geedkii oo la soo baxay muxuu ahaa macaadintii dhulka ku jirtay kala soo baxay oo laamaha soo marsiiyay kadibna mirihi ay ka dhasheen marka mirahaasina ay noqonayaan kuwa lagu intifaacsado marka sidaa darteed ba waxaad arkaysaa marka diinteenu islaamku inay tahay diin akhlaaq iyo qiyam inay tahay marka waxaa loo baahan yahay in marka aan hadafka weyn ee islaamku oo akhlaaqdaas marka akhlaaq marka ay dhinaahdo akhlaaqda mesela fiiri haddii aan si gaar ah u fiirino waxaad dareemaysaa diinteena islaamka oo dhan amba islaamnimaduba inay tahay wax akhlaaq dadka ugu yeeraysa ma soo koobi karo haddaan tusaale yar hadda ka soo qaadano يعني مثلا أركان الإسلام كأوكل كسوقات أركان الإسلام كوحا أجوهر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأجوهر رسا تان نفته هذا وحي شيء يسا أو يقرأ إن هذا أقرته خالق عادي أو كأبوري جريتان يا واحد نما إن هذا أقرته أو محايا لفضل بقوله هي مركز هذا وقرد أتقرأ محوها إلهي فضل جيسا وأخلاق أيضا نفته هذا سيدا كلا تمركز محمد رسول الله قال هذا هي خالق كأبوري rasuulkii uu kugu manaystay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku soo diray oo fadli ilaahay uu ku siiyay ayaad asagina qiraysaa rasuulnimadiisa marka ayada nafteeda ba akhlaaqa sidoo kale rukniga ku soo xigay arkaan islaamka waxaad ogtihiin inuu yahay rukniga salaadu marka maxay tahay salaada nafteedu waxay ugu yeeraysaa akhlaaq badan bay ugu yeeraysaa oo ayada nafteeda ba akhlaaq dadka ugu yeeraysa oo akhlaaqdaas ay ugu yeeraysaa waa maxay inna salaata tanha 'anil fahshaa'i wal munkar salaadu waxay reebaysaa baa leeyahay xumaanta ayay reebaysaa akhlaaqdu sidaad ogtihiinna waxay u qaybsantaa laba qaybood ama qiyamku waxay u qaybsamaan laba qaybood waxa la yiraahdo at-tahalli wat-takhalli at-tahalli wat-takhalli maxaa laga wadaa waxa laga wadaa in qofku uu akhlaaqda wanaagsan inuu isku dhareeyo oo uu labisto waxa wanaagsan waxa xunna uu iska reebo macnaha akhlaaqda wanaagsan waxa kamid ah يعني runtii baa kamida geesinimadii baa kamida deeqsinimadii baa kamida naxariistii baa kamida akhlaaqdaas inuu qofku marka uu xambaarto marka salaadu fiiri markaad u fiirsato inna salaata tanha 'anil fahshaa'i mar hadii lagu yiri fiiri salaada xumaantii bay reebaysaa marka akhlaaq xumadii bay reebaysaa way wax kasto akhlaaq xuma ah ayay reebaysaa wax kasto akhlaaq wanaagana way abuuraysaa oo muxuu ahay jamaacadan la sameeyay wad aragtay oo maaragtay nidaamsan waa nidaamka naftiisa waa akhlaaq weeye waxa akhlaaqa in dadku jamaaca ay ku wada tukadaan oo faqiir iyo qani iyo nin madaxa iyo nin taajir kulli in maartay la sinmo oo ilaahay hortiisa adoomo in loo yahay la qiro oo wajiga dhulka la saaro oo la siman yahay taa nafteedu waxay ku tusinaysaa waa akhlaaq iyo nidaam iyo xadaar ay sheegaysaa sidoo kale marka u sii fiirsato diinteena islaamka rukniga kale ee ku soo xiga waxa weeye muxuu ahaa markan lahano ashhadu an la ilaha illa wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa zakadu maxay tahay zakadu waxay ka tarjumaysaa خذ من أموالهم صدقة مركو إلهي يري تطهرهم وتزكيهم وطهارة فيري إيه زكاة ويه وزيادة إيه طاهرة ويه معناه حمانتنا ويكاد ظهير إيسا وحي وناكسنانا ويكوها نون إيسا أو ساعة صدرت هذا مركا سيدو كالت واحد أركا إيسا صونكي وكالك سوقات أسانا وعلمت ونبي عليه الصلاة والسلام وحيري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه أو شرابه وكما قال عليه الصلاة والسلام إلهي دم يا حاجبة كماله وح وكله مجرته قفك أن كتجين هذا الكبيان تاع يا حمان تاع يعني كعمل فلكي سنين كان كتجين مرك هذا الكبيان تاع يكعمل فلكي سدان لقيت تجين معناه هذا كم من صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش وهي مركا ضد بدنا وحاجة لا يصومن أو جاجة يون موجي وح كله فائدة يعني أنجرين معناه وح كله فائدة يعني محل جواد أمريكا ماشي أمريكا وحن كفى هني إن دين الإسلام كأي تهي دين الأخلاق صونكم مركا إنه أخلاق إسيهي أو حمانته وقفك كريبية وناجنا وهنون هاي أيام ماشي أيضا كفهمني وحد إيمان يسار ركن سناد إسلام كان أو إما أو حج كأ ركن حج كأ نفسه محوش شيء حج كي نفسه محوش شيء أخلاق وناكسم بشيء إن إلهي درتي سلوني يستو شيء إن حول حلال لو حجو شيء وحشية مركا أنت قفك وحاج كي إنه توبرته أو أخلاق وناكسن ومارته أو كتب برته فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بإلهي فيري رفث نمجره أفحمه يفسوق داعك بح يمرن يعني حج لما أقوله مركا هلكا وحد كفهنتي
sidoo kale xajkuna inuu yahay marka shay asagana loogu talagalay akhlaaqda inay dhisto marka meesha waxaan ka fahnay diinteena islaamku amba arkaanu islaam ha ahaado amba arkaanu iimaan ha ahaado amba camal kaloo la samaysanaayaba ha ahaadee dhammaantood ujeedadooda in laga leeyahay inay mira bixiyaan oo ay akhlaaq qofku yeesho akhlaaqduna marka waan arkaynaa waa midda xumaanta dadka ka reebta wanaagana ku hagta aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu